وحالدني كوبدي adigoo dunida badankeeda xukuma markasta la gul caadaystay haddii ciidankaagu uu jabo inaad adigu gacantaada naftaada aad isku dhaafiso Hitler muddo 3 maalmood ka hor intii uu qaadin weerarkiisii barafleyda Russia waxa uu bilaabay qorshayaasha taktikada isagoo kaashanaya saraakiishiisii balse si degdeg waxa u dhacday xaalad lama filaan ahayd taasoo qorshayaashiisa dagaalka aanu ku darsanin oo ahayd u diyaargarowga buurleyda barafka walow ay adag tahay in la xaqiijiyo siraha iyo go'aamadii qalafsanaa ee Hitler dambi baarayaashuna waa kuwa weli goobaya raadadka xaqiiqooyinkaasi bishii May ee sanadkani hay'adda booliska ee Interpol waxa ay soo bandhigtay xog ilaaladii qasriga ee Hitler in ay ahaayeen rocket loo eedeysiyay sida aadamaha oo kale taasoo u saamaxaysay in la waayo Hitler meel uu jaan iyo cirib u dhigay waxa uu ahaa shakhsi aan goobta shirka aan wada fadhiyi karin ilaa iyo inta uu shirku uu ka dhamaanayo sababo shaki awgeed Hitler waxa uu ahaa shakhsi aad uga taxadari jiray in madaxda ka hooseysa ay fahamto ujeedooyinkiisa siyaasadeed isagoo adeegsan jiray hadallo amar iyo hanjabaad isugu jira dagaal kasta oo uu qaadayo nidaamka iyo shaxda dagaalka isaga ayaa gacantiisa ku sameey jiray marna kuma kalsoonayn hogaamiyaashiisa ciidanka haddaba maxay tahay sababaha jabiyay ciidankiisii dagaalkii buurleyda barafka ee Russia aqoon xeel dheer umuusan lahayn Hitler xaaladda ka jirta buurleyda barafku uu qariyay ee waqooyiga Russia ciidankiisuna tababar fiican umaysan lahayn ka gudubka barafleydaasi walow ay isgaarsiintii ay hakad ay gashay sababo cimilo awgeed haddana markii horeba ciidankiisa waxaa lagu yareeyay sahayda muhiimka u xilliyada qaboobaha sida shaaha sanada tamarta dhalisa iyo shidaalka